Asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu. Asxaabtayda qaaliga ah soo dhawaada. Maanta waxaan sameysanaynaa chapati iyo digir oo fuul oo maraq ah oo aad u macaan iyo cake doorsho Soomaali ah. Aan sameysanaynaa maanta oo casriye aad u macaan. Soo dhawaada. Channelka subscribe dhaha, share iyo like iyo comment aad ba u mahadsantihiin. Waxaan idinkaga mahadcelinayaa subscribe-kiina, share-tiina, like-giina, comment-giina. aad ba u mahadsantihiin. Haddana waxaan sameysanaynaa waxaan horumarsanaynaa aan rabaa inaan sameysto chapatiga. Marka chapatiga horumarinayaa halkan waxaan kusoo shubanayaa 5 bakeeri oo bur ah. Marka cusbo iyo sokor yar iyo saliid yar waxaas ku qasaya. Aan isla socono insha Allah. 2 qaado sokor cusbo yar, saliid yar iyadana wax yar 2 qaado camal aan ku shubaya. Marka biyo qandaca intaas aan ku qasaya chapatiga wax kale kuma qasayo. Marka soo dhawaada mar labaad iyo mar saddexaad ba. haddana waxaan rabaa inaan gacanta la gala si fiican aan u soo xashay. Waa kaas si fiican aan u soo xashay maanta xashaayay si qurux badan aan u soo xashay. Shay kasta oo burka sameysan waa inaan si fiican u xashtaa hadii kale si qurux kuma noqonayo. Marka softigaas uu noqonayo marka si fiican loo soo xasho. Marka waa kaas saas u soo xashay. Haddana waxaan rabaa inaan jarjaro oo si kala kuuskuuso oo si kala hagaajiyo. Marka isla socono insha Allah. haddana xabadena u horeysa fidsanayna marka fidiyo waxa rabaa saliid yar inaan kor ka mariyo oo soo laalaabo. Marka sidii aan u laabi doono aan kulligood soo wada laabaya insha Allah. Labada iyo halka hore baan tusaya, labada horeysa in tusaya insha Allah. Kabacdi waan soo dhamaynayaa oo isku soo laabanayna.
haddana labada u horeysay asagana waan soo dhameeyey. Waxaan rabaa inaan fidiyo. Birtana dabka ii saaran tahay, dabka uu gaabsan yahay. Marka waan dubanaynaa, waan karsanaynaa. Jabaatigeena haddana karsanaynaa. Isla socon insha Allah. xabadeena u horeysa haddana soo karsanaynaa. Markaan xabada u horeysa soo karsado oo tan labaad idin tuso insha Allah saas kusoo dhameynaya. Kabacdina waxaan guda galeynaa maraqeeni inaan karsano. Digirtu way karsan tahay. Marka hore kariyey barish kuukar aan ku kariyey. Marka haddana jabaatiga markaa dhameeyo waxaan karinayaa insha Allah maraq. Isla socon insha Allah. haddana xabad laba saas aan kusoo dhameeyey. Saas quruxda badan oo noogu soo baxay. Haddana waxaan soo saartay digsiga dabka, saliida kusoo shubtay. Hal xabo basal aan soo jarjartay aan ku darsaday. Waxaan rabaa yaaya aan soo shiiday 3 xabo inaan ku daro. Markaan basasha shiilo marka yaayadaan ku darsanayaa. Wax yar yar caraf aan ku darsanayaa. Isla socon insha Allah. haddana yaayadeen waan ku darsanay. Waxaa kaloo ku darayaa shiishiid. Shiishiida midaan yararkaan isticmaalaa. Hal xabo isticmaalaa. Marka halka xabo hadda ku darsanayaa insha Allah. Marka waxaa kaloo sameyn rabaa waxaan rabaa inaan ku daro xawaaji buurbuur, basbaas, huruud,
toonta shiidan iyo reekogaas isticmaalaya ku diri rabaa iyo maraq digaag waxaasoo dhan ku dirayaa xawaajiyaashan waxa dhan nin walbo marka xawaajigu haysto isticmaalaa marka aan intaan haysto baan isticmaalayaa marka isla socon insha Allah xawaajiyaashan ku darsanayaa marka suugada soo bislaato yaanyada way bislaatay aan isdhaho waxaan ku darsanayaa digirtii oo ayadana gooni aan soo kariyay isla socon insha Allah waxaan kusoo darsaday kabsar caleen iyo toon aan isku tumay oo fridge-ka igu jirto isku shiiday oo sidaas ku isticmaalo aan kusoo daray laakiin sida kaleete toonta iyadoo shiidan aan ku daray ayo caraf dhan way ku jirtaa marka kabsar caleentii toontana waa lagama maarmaan waan ku darsaday maadaama suuga aad karinaysid waxyaabaha carfaaya iyo kabsar caleenta iyo waa waxyaabaha lagama maarmaanka marka haddana waa suugaday diyaar waaye waxaan ku darsanayaa digirta waan soo kariyey sima aragti waxaan soo kariyey iyadoo brush cooker-kan ku kariyey si fiican u soo kartay marka waxaan rabaa inaan intaan markaas saa isu dhexgeliyo wax u dhiman mala hadda cusbadiisa iyo kor waxaa kaga darayaa qumbaha caano qumbo oo qumbaha qaleelka aan isticmaala oo caanaha ah oo loogu talagalay qudaarta suugada iyo lagu darsado cuntooyinka lagu darsado marka kaasaan ku darayaa koob waxa haafkiisa wax yar ka yar koreeyo ayaan ku darayaa biyo ahaan ugu biyeenaya qumbahaas markaa ku daro cusbadiisa ku darayaa basal iyo barbarooni aan kor uga darsanayaa bas suugada saasay igu dhantahay markaas ka bacdina waxaan karsanaynaa keegeeni suugadeena hadda waatan waa noo diyaar waan soo karsanay jabaatigeena diyaar waaye marka waxaan rabaa baaquligaas inaan ku diyaarsado soo dhawaada halkan waxaan kusoo shubanayaa keegii ukuntii qaybta cadda ah iyo waxaan rabaa inaan kala saaro jaalaha waxaan ku shubayaa 6 xabo oo qaybta cadaanka ah jaalahana gooniyaan ku shubayaa marka 6 xabo oo jaalaha markaan gooni u bixiyo waxaan ku darsanayaa sokor yar oo rabaa inaan ku garaaco marka isla socon insha Allah muuqaalka haduu dheer yahay oo ku caajistaana ka raali ahaado waxaa waaye muuqaalka aad baan u dheereeyay waqti baa iga galay marka inaa fiirstiin isku day like ay saartaan subscribe-ka share-ta like commentiga aad u qurux badan waa noo muhiim sokorta qaybtan yartaan hore rabaa inaan ku shiido markaan ku shiido intaan aan ku si fiican ugu qaso qaybta cadka iyo wax yar sokorta ah sokorta kale qaybta kale waa ku daray inaan kamerada tusaa u maleynayay marka ukuntiina haddaan ku daray marka waxaan ku daray hadda waxaan ku daray ukuntii qaybta cad iyo qaybta jaalaha bakeeri sokor ah waxaan ku daray haaf caano ah iyo wax haaf yar oo saliid ah iyo waxaan ku daray oo kaleeto heel iyo faniilo marka baking powder-ka iyo burkana waa isku soo shaqshaqaaya oo inta burka dhexdiisa hadda ku shaqshaqaaya marka intaasaa ka sameynaya doolshadeena
qiyaasta haddii ku saxmato doorashada way kuu saxmeen, laakiin haddii qiyaasta ay kaa kala yaryaraato ma kuu saxmeyso. marka hadda waan saxanaynaa insha allah. waan shaqshaqayaa doorashada, waxaan isku shaqaqayaa burka iyo baki boodarka. bakeeriga u horeeya waxaan ku sameynayaa keligiisaan ku shaqshaqay oo ku dhameeyey. bakeeriga labaadna waxaan rabaa inaan iyo isagii baking boodarkaan ku shaqshaqo. marka aa shaqshaqday wuxuu kaa caawinaya burka inuu qasmadiisa uu kuu fududaato oo kuuskuus iyo waxba uusan kaa yeelanin. laakiin haddii aad shaqshaqin sidiisa ugu shubto wuxuu yeelanayaa kuuskuus ama wuu ku dhibayaa maanta dhan inaa burburiso yara adkaanaya. marka saana ka fudud waa isdhaani ahaanteyda. marka baking boodarkii iyo bakeeriga u dambeeyey waa kaasaa 2 bakeeri bur ah iyo qaado baking boodar oo si fiican u buuxin waayo oo qaado wax yar dhiman ah. marka intaana si fiican isu dhex gelinaya. waalkaas saliid iyo waxaa soo marsanayaa maxaa la dhahaa saliid iyo bur yar soo marsanaya. foornada way iisii shidan tahay. marka foornada kulul inaa gelisid waaye. markaas waxaa u daaraysaa hoosa waxaa u daaraysaa ilaa 5 daqiiqo camal. markaa hoos 5 daqiiqo camal u daarto kabacdi kor iyo hoos caadi ah wada shidee. marka qofba foornadiisa siibay u karisaa. qof waa 180, qof waa 150, qof 250. hadda aniga teeda 250 waaye. marka qofba si waaye. marka hadda keegeena meeshaan kusoo shubtay waxaan gashanaynaa foornada way kulushahay. waa arkayna suu kusoo baxo. haddana waa kana keegeena sida quruxda badan oo noogu soo baxay. lagama sheekeyn karo quruxda, carafta, macaanka. marka waa kaas wax kala go-ay xitaa ma ahan. soft waa isaga dhan. mana adeegna ma ahan, jileec waaye. jileeciisa wax kala daadanaana ma ahan. waa wax soft ah maasha allah. doolasho Soomaalida la yaqaanay oo asalka ahayd waaye. markaas jileeca asaga dhan buush waaye. marka iyo macaan iyo caraf. markaas soo dhawaada janka subscribe dhaha, share iyo like iyo comment. aad ba u mahadsantiin intaa muuqaalka wixii ku kulmayno. assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu.